cisbitaalka Maandhaye ee magaalada Burco ayaa saaka lagu qabtay munaasabad xariga lagaga jarayay dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay cisbitaalka iyo waliba agab sariir ah oo dhammaantoodba ay ku deeqeen ururka dhalinyarada Togdheer Abroad Foundation ee loo yaqaan TAFka soo fadhigiisa yahay dalka Ingiriiska. Munaasabadan ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen xubno ka socday ururka TAF, wasiirka iyo wasiirka xigeenka caafimaadka Somaliland, maamulka degmada Burco, dhakhaatiir iyo marti sharaf kale oo badan. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Xoog, waxaana uu sheegay inay mahad ballaaran u soo jeedinayaan guddiga horumarinta gobolka Togdheer iyo ururka Togdheer Abroad Foundation. Waxaana wasiirku sheegay in wasaarad ahaan ay ka kaalmeyn doonaan cisbitaalka wixii karaankooda ah, isagoo wasiirka caafimaadku ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in la horumariyo caafimaadka gaar ahaan daryeelka dadka maskaxda ka jiran oo uu ku tilmaamay loo baahan yahay in laga horumariyo dhammaanba adeegyada kale ee bulshada. Wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Somaliland Marwe Nimco Xuseen Qowdhan oo yana ka hadashay munaasabadaasi ayaa sheegtay in xilligani ay jiraan dhibaato badan oo soo food saartay dadka xanuunka dhimirka la ildaran, waxaana wasiirku sheegtay in loo baahan yahay in dadku gacmaha isqabsadaan sidii dadkaasi wax loogu qaban lahaa. Togdheer waxaad moodaa goboladii Somaliland inuu noqday role model, uu noqday runtii gobol isku tashaday. Dawladdu waa shacabka isu tagay, cidda dawladda idin fadhidaana waa dadkii aad doorateen. haddaydan idinku taakulayn oo idaan dhinaca qaban marka aan shacabka nahayna dawladdu runtii waxay qaban kartaaba iska yar. marka runtii waxaan mar labaad u mahadnaqayaa ururkan TAF oo asaguna ku hawlahan horumarinta gobolka Togdheer oo aan leeyahay dhalinyaradii u dhalatay gobolada kale Somaliland ha ku dayato ururka TAF. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Burco Master Axmed Cabdi Falaayosna munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in dawladda hoose ee degmada Burco ay ku deeqday dhulka cisbitaalku ka dhisan yahay, iyadoo dawladda hoose banayn iyo dadaal dheeraad ah gelisay sidii uu hirgeli lahaa cisbitaalkani. Waxaanu gudoomiyuhu mahad ballaaran u soo jeediyay ururka TAF isagu sida weyn uga howlgalay cisbitaalka Maandhaye iyo dhakhaatiirta ka howlgasha. U qaybsamaha ururka Togdheer Abroad Foundation ee cisbitaalka Maandhaye Master Cabdi Xariir Baruud ayaa isagoo halkaasi ka hadlay aasaaska ururka TAF iyo sida ay dadaalka dheer ugu galeen in iyaga oo dhalinyaraha ay gobolkani Togdheer ay u tafaxaytaan wax u qabashadiisa, iyaga oo kaalmooyin soo gaarsiiyay cisbitaalkani Maandhaye gacan weyn ka geystay hirgelintiisa. horta aan ku bilownayno 12 gini iska ururino, deetana 12 gini markaan ururino hadhowta meesha ugu habboonaynu gelino. saas ku bilaabmay TAF 12 gini baan ururinay. bari annagoo wadna waxa noo yimi odayaal magaalada hawdka ka qabtay. dadka waxay nagu dhahdeen waxa jira dhakhtar dadka xanuunsanaya lagu xanaaneynayo, ka waran hadaad nagala qayb qaadataan. horta labadii ugu horeeyay ee TAF bixisa xaqaasaan ku bixin iyagaan u soo dhibnoon waaye labada kuma nahaynaa qaata. geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay dad badan oo ay ka mid ahaayeen Dr. Axmed Cawad, Dr. Faadumo, gudoomiyaha jaamacadda Burco, isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer, dhakhaatiir qurbajoog iyo marti sharaf kale oo badan. dhammaantoodna waxay ku dheeraadeen sida loogu baahan yahay in wax loo wada qabsado, iyagoo ammaan gaar u soo jeediyay ururka TAF oo isagu haatan si weyn uga dhex muuqday gobolkani Togdheer. ugu dambeyntii wasiirka caafimaadka Somaliland Dr. Cabdiraxmaan Xoog ayaa si rasmi ah xariga uga jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyay cisbitaalka Maandhaye ee Burco iyo waliba 15 sariirood oo dhammaantoodba ay cisbitaalkani ugu deeqeen ururka TAF, waxaana caawimada ururkani soo gaarsiiyay cisbitaalka ay wax weyn ka bedeli doontaa hanaankiisii shaqo. Maxamed Cawad Maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Burco.